gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariisow ayaa sheegay inuu guddi u saaray dhulka danta guud ee dawladda hoose lahayd ee la dhistay. Horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dawladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in dan guud lagu soo celiyo. Annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arintaas aan uga dhabayn lahayn. duqa dawladda hoose Xamar Injineer Yariisow ayaa sheegay in hanaan sharci aan loo marin bixinta jardiimooyinka dawladda hoose ay lahayd lagana hirgeliyay dhismayaal ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed. intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas degan in heshiis ay dawladda hoose markaas jirtay ee la gashay. heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga isla markaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qayb gelin iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimadda aan soo celinno. gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariisow ayaa ku dhawaaqay in dhammaan la baabiyay heshiisyadii lagu bixiyay jardiimooyinka Muqdisho iyadoo ganacsatada lagu amray inay ka baxaan muddo 30 gudaheeda. sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib oogala noqday isla markaan la baabiyay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dawladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ka bilaabanaysa maanta ay ku baneeyaan kalana baxaan wax alaal wixii agaba ee u yaal. qorshaha dawladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dawladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdina qayb ka qaadata. duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaa digniin u diray ganacsatadu inay ka madax adeegaan awaamirta soo baxda maanta ee la xiriirta inay ku baneeyaan muddo 30 gudaheeda. ugu dambeyntii cid alaale ciddii talaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo. sababta muddada 30 cisho loo siiyay waxay tahay cid alaale ciddii tabasho qabtana ay noo timaado, laakiin annaga waxaa naga go'an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo. gudoomiyaha gobolka ayaa tan markii loo magacaabay xilka gudoominimada wuxuu joojiyay dhismayaal ka socda Muqdisho iyadoo qaarkoodna la burburiyay sida garoonkii kubadda cagta ee lahayd kooxda LLBJ ee degmada Yaaqshiid iyo xaruntii Biyaasa Leebaro ee degmada Xamar Jajab.